lagu maamuuso taalo gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida disha waa ku dhimanaynaa in dawladnimadaas ay hirgashana ma jiro qof ku waaraya adduunka balse waxaa jira taariikh waaraysa weligeed oo uu qofku ka tago marka uu geeriyoodo duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan allaha u naxariistee waxa uu siyaasadda soomaaliya ku lug lahaa ku dhowaad 15 sano ee u dambeeyey cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxa uu ahaa mabda'le geeriyooday isaga oo ku hawl jira ka dhabaynta qadiyad iyo hadaf uu lahaa taas oo ahayd sidii dalkiisa iyo dadkiisa u heli lahaayeen dawladnimo allaha u naxariistay cabdiraxmaan yariisow muddadii uu u shaqaynayay qaranka waxa uu ahaa halyey qaran oo yaqaana kaalintiisa dhidid iyo dhacaanba u qubay shaqada uu markaasi u xilsaaran yahay ilaa uu dhintay wuxuu ahaa shakhsi kulansaday tilmaamaha iyo sifooyinka ugu milgaha iyo sharafta badan ee uu yeelan karo qof bini'aadam ah sida waddaniyad dulqaad daacadnimo karti aqoon-yahan maamul yaqaan samafale isxaan badan oo mar kasta u taagan danta guud iyo sarraynta sharciga shaqada dawladda waxa uu bilaabay xilli ay adkayd u shaqaynta qaranka isaga oo ka soo safray dalka ingiriiska wuxuu ahaa nafti hore ka soo tegey qoyskiisa iyo noloshii uu halkaasi ku haystay si uu uga dhabeeyo mabaadi'dii uu aaminsanaa oo ahaa soomaaliya oo hesha dawladnimo allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan yariisow shaqadii ugu dambaysay ee uu qabtay waxay ahayd guddoomiyaha gobolka banaadir taas oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya uu u magacaabay horraantii sannadkii muddadii uu xafiiska joogay waxa uu muujiyey waxqabad ballaaran oo ay dadka reer muqdisho ku xasuusan 13 bishii juun madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo warbixin ku saabsan waxqabadkooda ka dhigaystay guddoomiye yariisow iyo howlwadannada la shaqeeya ayaa waxa uu ku bogaadiyey doorka muuqda ee ay ka qaadanayaan dhismaha qaranka gaar ahaan barnaamijka isxilqaan ee dib loogu dhisayey dalka runtii waxaa soo bandhigteen presentation ama warbixin wanaagsan oo runtii waxgal ah aniga naftay siisay fahm inaan ogahay gobolka inuu runtii shaqaynayo oo uu abaabulan yahay uu organized yahay inaan fahmo aad iyo aad u wanaagsan tahay waxaad sheegteen kulli waa wax wada wanaagsan markaan idin dhegaystay 3 arrimood kaliya rabaa horta inaan ku kordhiyo oo ay noqoto waxa ku shaqeysaan ay noqoto waxa ku shaqeysaan oo mabaadi' ah cabdiraxmaan yariisow allaha u naxariistee waa mid ina tusaysa in hanka iyo halganka qofku guulaysanayo haddii uu yahay qof leh qadiyad iyo hadaf diinteenna suuban ayaa na faraysa muhiimadda cafisku leeyahay qof kasta oo bini'aadanana muslimana waxa laga rabo waxay tahay qof kastoo dembi ka galo inuu iska cafiyo sida keliya horumar lagu gaari karo bulshadana isku jeclaan karto waa in cafiskaas uu noqdaa mid joogto ah sidaas daraaddeed waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho waxaan aad iyo aad idinkaga codsanaynaa idinku baryaynaa inaad qof walboo soomaaliyeed aad cafisaan lays cafiyo laysu dulqaato laysu samro si aan soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed u noqoto bulsho caalamka ka tilmaaman kana muuqata sida keliya aan caalamka uga muuqan karno isla markaana u tusi karno cududeenna waxay tahay annagoo mid ah wada jir ah midnimo iyo wada jirna waxay ku imaanaysaa annagoon cuqdo isku qabin annagoon isku xanaaqsaneen annagoon kala shakinin annagoon isxasdin annagoo isjecel iscafinno waa habka keliya ee adduunkanu horumar ku gaaro marka waxaan rabaa dhallinyaroy in cafiska aan wada qaadanno fadlan wixii qalbigaaga ku jiro muxuu ahaa ku beddel wanaag qof kastood ood wax u qabtayna cafi aan iswada cafinno anigana waxaan halkan rabaa inaan ka ballan qaado qof kastooo dembiga galay waa cafiyey waxaan rajaynaa sidoo kale anigana in lay wada cafin doono haddaanan iswada cafinin